iyadoo dhawaan 3 dal oo Soomaaliya ka mid tahay looga dhawaaqay koox diimeed la magac baxday Asaadicuuna Bilxaq ayaa arintaasi waxa ay walaac ku abuurtay ummadda Soomaaliyeed oo markaasi u arkaysay dhibaato dalka ku soo kordhay. dawladda Soomaaliya maamulada dalka ka jira iyo culimada intaba waxa ay soo saareen bayaano lagu xarantimaynayo mabaadi'da ay kooxdani Asaadicuuna Bilxaq la timid ama aaminsan tahay. shir jiraa'id oo maanta xarunta gobolka Nugaal ay ku yeesheen xubno ka tirsan ururdiimeedkan maamulka gobolka iyo taliyaha la dagaalanka argagixisada iyo muqaadaraadka Puntland ayaa looga wada xaajooday waxyaabaha ay dadkani ka aaminsan yihiin dadka iyo dawladaba. Jamaal Xasan Muuse oo xubinka ah Asaadicuuna Bilxaq ayaa tilmaamay in jameecadoodu aysan wax xiriir la lahayn takfiir iyo urur kale toona. waxa uu shaaciyay in ay wadaan risaalo diinta ah isla markaana dadka ay si nasteexa u gaarsiin doonaan fariintooda. horta marka hore anagu waxaan nahay sida aan horeyba u sheegnay dad ka tirsan ama xubno ka tirsan jamaacada Asaadicuuna Bilxaq ayaynu nahay. sidaan hore u sheegnay hadafkayaga iyo dantayaduna waxa weeye in dadka ugu yeerno diinta xaqa ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu basharka oo dhan iyo aadanaha oo dhan ugu talagalay inaynu maaragtay dadka si nabadgelyo ah oo naxariis ku dhisan in dadka ugu yeerno annagoon adeegsanaynin hub iyo dagaal iyo cunfi annagoon adeegsanaynin. runtii annagu waxa weeye maaragtay hadafkayagu dadka inaan u saxno islaamnimada saxda ah, dadka inaan u saxno waxyaabaha ay ku geli karaan shirki iyo in Ilaahay cid kale wax la wadaajiyaan. marka ujeedada aan u istaagnay waxa weeye waa badbaadinta ummadayada oo aan aragnay in maanta ay marayso meel aad iyo aad u liidata. laga soo bilaabo maalintii khilaafada islaamka ay burburtay oo xukun islaam oo caam ah ummadda islaamka oo dhan u taliya maalintu burburay ilaa yoomina hada in dadku ay maaragtay xukunka iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan oo yahay xukun jaahili ah oo aan ahayn kii Ilaahay ugu talagalay aadanaha. marka hadafkaygu waxa weeye bini aadamku in ay Ilaahay adoon u noqdaan oo kitaabka iyo sunnaha nabiga ay maaragtay ku dhaqmaan. anagu ma nihin dad meel kale ka yimid ama maaragtay meero kale ka yimid ma nihin dad bulshadooda ku dhex noolaa oo weligood ku dhex jiray baynu ahayn. haddana maaragtay dareemay xilli ay wax cadeyn karaan ama wax soo gaarsiin karaan dadka inay tahay. marka anagu ma rumaysanin in annaga kaliya aynu nahay muslimiin ama inta jamaacadayada ka tirsan oo kaliya inay muslimiin yihiin anagu ma rumaysanin. waxaan rumaysanahay in qof walba hadba siduu Ilaahay ugu dhawaado oo Ilaahay uu adoon ugu noqdo arintaasi inay ku xiran tahay. gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa dhankiisa tibaaxay in markii hore uu shaki geliyay ku dhawaaqista kooxdan balse hadda ay jirto isku soo dhawaansho labada dhinaca dawladda iyo ururdiimeedkan. gudoomiyaha ayaa sheegay in ururdiimeedkan uu ka mid yahay kuwa kale ee deegaanka ka jira haddii aysan ka hor imaanin diinta iyo dawladaba ay ka mid noqon doonaan muwaadiniinta kale ee dalka xaqa ku leh. waxaan isla garanay qodobada halkan aan ka akhrin doono inaysan ka mid ahayn ururdiimeedka takfiir wax lugana aysan ku lahayn shaqana aysan ku lahayn aynu arkaan fakar qaldan waxa garanay wey inaysan wax hub ah qaadan karin oo aysan ahayn urur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira inaysan samayn karin wax tababar ciidana ama wax u eg toona inaysan siyaasad ku jirin aysan gelina karin kana hadda ka mid nahay siyaasadda inay nabadgelyada iyo xasiloonida Puntland ka jirta wax dhibaato aysan ku hayn isla marhaantaana ka mid noqon kara cid dhibaato ku haysa. dalalka Masar, Liibiya iyo Soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa 2017 waxaa looga dhawaaqay ururdiimeedkan Asaadicuuna Bilxaq. waxa ay sheegeen in ay yihiin kuwa kaliya ee xaqa u taagan isla markaana dadka ay gaarsiin doonaan diinta. Maxamed Soofaysan, raadiyaha iyo telefishinka dawlad goboleedka Jubbaland, Garowe.